1983 ayaa waxaa dhacday wax la yiraahdo heshiis qaran, heshiis is-afgarad hay'adda tuulada caruurta ee caalamiga ah iyo dowladda Soomaaliya ee xilligaas jirtay wada saxiixdeen 1983 Oktoobarkii la saxiixay. heshiiskii wuxuu noo ogolaanayay inaan wadanka soo galno oo ka shaqeyno. dowladdana mas'uuliyadda uga aadan dhinaca caruurta ayadana ay ka qaadato. dabcan heshiiskii waxa ku xigay dhismo iyo howlo dheer xarig jarka dhabta ah marka wuxuu dhacay 17 December 1985. waxaa la gaaray guul weyn iyadoo hay'adda tuulada caruurta SOS ay noqotay guri badbaado iyo xanaano oo caruur badan oo waayay daryeel waalid. hay'adda waxay ku dhaqaaqday inay caruurta ugu yaboodo daryeel bedel u ah kii waalidka iyo ilaalin. caruur badan oo waayay daryeel waalid ayay ka caawisay inay la noolaadaan qaraabadooda iyadoo laga taageerayo helidda waxbarasho, caafimaad iyo asaasiyaadka kale ee nolosha. caruur kale ayay ku daryeeshay tuulada caruurta ee SOS waxaana lala mataaneeyay hooyo loo tababaray inay buuxiso kaalintii waalidka iyadoo ubadka siinaysa jacayl, ilaalin iyo jawi qoys oo dhammaystiran. waxaan hayaa caruur gaaris 7 cunug waxaana kala yihiin 4 wiil iyo 3 gabdhood. waxaan u sameeyaa shaqada aan u qabto waxa weeyaan nadaafadooda, iskuulka u diyaariyaa, homework guriga ka shaqeeyaa, waxaan siiyaa kalgacayl hooyanimo, waxaan dhageystaa warkooda, baahiyahooda gaarka baan aad uga warqabaa. caafimaadka kii xanuunsaday iyo kii oo waxyar ay ku dhacaan caafimaadkooda aad uga warqabaa. waxaan u dhowahay daryeelkooda gaarka, waxaan aad ugu booriyaa inay farxad helaan, inaan kalgacayl siiyo, mid walba aan meeshiisa kalgacayl siiyo sidii hooyo macaan oo kale. guriga waxaa ku edel dhammaan agabka ilmaha u baahan yihiin sida miisaska akhriska iyo TV-ga iyo qalabka ciyaarka. 2 sano kadib imaatinka hay'adda SOS waxay sanadkii 1987 aasaastay isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee SOS si uu u daboolo baahida caafimaad ee caruurta, hooyooyinka iyo bulshada ku hareeraysan. isbitaalka wuxuu noqday xarun lagu kalsoon yahay oo laga helo adeegyo muhiim ah sida qaybta maternity amsan qaybta haweenka oo aynu ku bixino adeeg dhalmo 24 saac ah iyo adeeg bukaan jiif oo 24 saac ah. sidoo kale isbitaalka wuxuu leeyahay qayb sheybaar and blood bank ah oo hooyooyinka maxay haday dhiig aan ku siino. sidoo kale isbitaalka wuxuu leeyahay qayb MCH ah oo aan ku bixino talaalada hooyada iyo dhallaankaba. sidoo kale isbitaalka wuxuu leeyahay qayb caruur oo aan ku daryeelno ilmaha, bukaan socod iyo emergency-ba oo ka kooban tahay. sidoo kale waxaa qaybta caruurta ku sii dhaxtaal qayb nutrition ah, bukaan jiif ah iyo bukaan socod oo qayb nutrition ah. muddo ka badan 35 sano isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee SOS wuxuu ka qayb qaatay badbaadinta kumanaan caruur iyo hooyooyin ah, isagoo muddo badan ahaa isbitaalka keliya ee dadweynaha kana shaqeeya Muqdisho, gaar ahaan waqtiyadii dagaalada sokeeye. xilligii qabta horta badbaado bulshada Soomaaliya waa ka helnay, laakiin saameyntii dagaalada dhan wadanka ka socday, dagaalada guud saameyn guud nagu yeeshay. shaqaalaheena ayagoo shaqada u soo socdo ama shaqada ka baxayo ama goobta shaqada joogo in dhib badan uu gaaro ay ugu weyn tahay dhimasho. maalintaas marka waxaan ku qasbanaanay 2006 markay ahayd waxaan ku qasbanaanay xarunteena village-ka iyo isbitaalkeena lagu yaqiin inaan ka baxno, laakiin adeeggeena marna ma joojin. bukaanno ayaa kaga imaan jiray gobollada dalka, xitaa xuduudda ku teedsan Itoobiya ee gobolka Hiiraan. waxaa xusid mudan in adeegyada isbitaalka ay dhammaantoodba ahaayeen bilaash. waxbaana inta imaaday daabaan soo doontay inuu iga xanuunsado anaa xanuunsoo imaaday talaala cunugdiisii marna cunugaan ku dhalay maantan gabar walaashii oo foolaan soo wadnay marka wax walba bilaashaan uga qabtaa soo afmaasantay. sanadkii 1991 dhicitaankii dowladdii dhexe ee dalka isla markaana uu wadanka cagaha la galay dagaalo sokeeye, isbitaalka waxa uu fuliyay qalliimo culus oo lagu badbaadiyo hooyooyin iyo dhallaankooda oo halis isku galay. waxaan u mahad celinayaa hay'adda SOS diktoorkay Cabdiina ee qalay oo hadda qorne dhaymaday ku guuleys. haddana maasha Allah qaliinka maanta 3 ayaan caafimaad qabaa. tuulada caruurta ee SOS Soomaaliya waa wadnaha barnaamijka daryeelka bedelka ah, maadaama uu wadanka cagaha la galay colaado sokeeye. caruur badan ayaa waayay waalidkood, qaar ku dhintay dagaalada, qaar laga barakacay kadibna ay kala lumeen iyaga iyo waalidkood.
hay-adda waxa ay tuulada ka samaysay guryo badan oo carruurta lagu xanaaneeyo, xarumo ciyaaro, goobo tababar iyo jawi si buuxda u taageeraya korriimaha jireed iyo midka maskaxeed ee carruurta. 12 qoys oo family ah dhex degan. 12kaas qoys guri walba waxaa joogta tiro 8 u badan 4 carruur u yar oo isku dhaf ah aad joogto. carruurtaas markaa meesha ku koraan, waxbarashada iskoolkiina dhinacan uga yaalaa, isbitaalka inta uga yaalaa, jaamacadda inta uga yaalaa, tuuladii dhammaystirana marka xamar noogu taal. 40 sano oo ay waddanka ka shaqaynaysay tuulada carruurta ee SOS waxay daryeeshay kumanaan carruur ah, kuwaas oo maanta bulshada u noqday dad waxtar iyo lafdhabar u ah bulshada Soomaaliyeed. waxaan shaqo ka soo bilaabay intaan hadeertaan oo ahay senior finance officer. waxaan rabaa inaan xuso hay-adda SOS inay soo barbaarisay, wax i bartay, jaamacad iga bixisay, maanta aqoonteeda iyo kartida aan leeyahay ee gaarsiisay hay-adda SOS. aadna ugu mahadnaqayo, uguna shukrinayo qayb weyn ay ka qaadatay nolosheeda horumarkeyga. Dhalinyarada ay hay-adda soo saartay waxay kaalin libaax leh kaga jiraan qaybaha kala duwan ee shaqada, sida isbitaalada, hay-adaha bani'aadanimada ka shaqeeya, wasaaradaha kala duwan ee dowladda iyo ganacsiyada gaarka loo leeyahay. waxaan ahay ardadii ka aflaxday iskuulka ama college-ka ama jaamacadda SOS College Nursing, kana shaqeeya isbitaalka jaamacadda Simad Dorsumid Hospital, ahna madaxa nursingka isbitaalka jaamacadda Simad, sidoo kale tan ah macallin ka tirsan kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Simad iyo cilmi baare ka tirsan jaamacadda Simad. jaamacadda SOS waan ka faa'iiday nolosheyda, dad badan oo masaakiin ah oo Soomaaliyeed waxaan ugu qabtay, bulshadeedana wixii aan soo bartay aan ugu faa'iideeyay. hay-adda oo dareensan baahida loo qabo horumarinta waxbarashada ee carruurta ayaa aasaastay dugsiga aasaasiga iyo dugsiga sare ee SOS Muqdisho, waxaana hadafku ahaa in la dhiso maskaxda iyo mustaqbalka carruurta. dugsigan wuxuu hoy u noqday carruurta lagu daryeelo tuulada iyo kuwa deegaanka, wuxuuna ku dhisan yahay mabda' waxbarasho tayo leh oo qof walba gaarta. taqriiban ardada ka aflaxday waxay gaarayaan taqriiban ilaa 2,000 oo arday way gaarayaan oo ka dhameeyay dugsigan oo hadda dalka qaybihiisa kala duwan ka shaqeeya, meelo saarana ka hayo. magacaygu waa Maruum Maxamed Xasan, kana mid ah ardada dhigata iskuulka SOS, kana soo bilaawday xanaanada, haddana ka mid ahay ardada qalinjibinta sanadkan. waxaan ahay dadka ee soo gacan qabatay iskuulka SOS, iga dawoosh SOS baahideeda ahayd inaan wax barto, kii waana u mahad celinayaa. waxaan rajeynayaa iskuulka markaa dhameeyo inaan noqdo ganacsato. sanado badan kadib maanta dugsigu wuxuu leeyahay fasallo tayo sare leh, macallimiin tababaran, barnaamijyo kobciya xirfadaha ardada, dhacdooyin lagu kobciyo garaadka carruurta iyo dhalinyarada. xaqiiqda haddaan ka hadlo, aniga markaan dugsi sare ka baxay 2 sano waalidkayga iyo ciddayda igama bixin karin jaamacad. anoo 2 sano meelaha iska jooga ayaan joornaal xogaal ay dhahaan ayaa waxaan ka arkay hay-adda SOS waxay qaadanaysaa kalkaaliye caafimaad. waa soo codsaday, shahaadadeen la imid, way i qaateen, waxay siiyeen waxbarasho oo free ah oo lacag la'aan ah. arrintii ay tababarkii ugu sameeyeen ayaa waxay keentay inaan aniga iyo familkayga caawiyo, bulsho badan caawiyo, waxbarasho fiican aan ka helo ilaa iyo master aan ka sameeyo. hay-adda oo rabta inay kordhiso xirfadlayaasha caafimaadka ee Soomaaliya iyo inay rumayso hamiga ardada ka qalin jebinaya dugsiyada sare ee doonaya inay ku biiraan bahda caafimaadka ayaa aasaastay kulliyadda caafimaadka iyo jaamacadda SOS oo lagu bixinayo tababaro heer jaamacadeed ah, lehna shahaadooyin digrii iyo dibloma. koorsooyinka ay jaamacadda bixiso waxaa ka mid ah kalkaalisada carruurta iyo hooyada, caafimaadka bulshada, caawinta caafimaadka degdega ah. tan iyo aasaaskii jaamacadda sanadkii 2002 waxaa ka aflaxday dad kor u dhaafayo 1,000 kaadiriin, kuwaasoo maanta ka howlgala sistamka caafimaadka dalka, hadday ahaan lahayd degmo, tuulo iyo maxay ahayd stateba ka shaqeeya. u shaqeeya publiga, u shaqeeya privateka, u shaqeeya humanitarianka. cusbitaalaadka dalka haddaad tagtid NGOska internationalka iyo kuwa localka, haddaad tagtid wasaaradda caafimaadka waxaa ku arkaysaa kaadir caafimaad oo ka soo aflaxay maxay ahayd jaamacadda SOS. waxay noqotay xarun lagu kalsoon yahay oo dhalinyarada Soomaaliyeed siisa aqoon ay nolosha ku badbaadiyaan. waxaan wax ka soo bartay tuulada carruurta SOS, waxaan ka soo dhameeyay primary and secondary school, kadib waxaan ku soo biiray SOS Nursing School. haddana waxaan soo ka shaqeeyaa 10 sano, waxaan ku shaqeeyaa hadda title-keyga waa midwife. taageerada hay-adda tuulada carruurta ee SOS kuma koobnaanin Muqdisho oo keliya, waxay gaartay magaalooyin badan oo ka tirsan Soomaaliya, sida Baydhabo oo ay taageero weyn ka geysatay arrimaha daryeelka caafimaadka, waxbarashada iyo beeraha.
xarunta tuulada carruurta ee magaalada Baydhabo waxay gacanta ku haysaa isbitaalka degmada Baydhabo kaasoo bixiya adeegyo dhammaystiran oo ay helaan hooyooyinka iyo dhallaanka. waxaa kaloo jira xarumo caafimaad oo gurguura kana shaqeeya inta badan xerooyinka barakacayaasha iyo dadka deegaankaba. dhismo ahaan dhismaha waa yaraay inta waa ka yaraay SOS ayaa baaxad ku samaysay service ahaanna serviceka xilligaas la bixin jiray wuxuu ahaa primary health care halka hadda labadaba from that day up to now oo la isla bixinayo primary iyo secondary health service labadaba la bixinayo. isbitaalka bukaanada ka yimaada waxay ka kala yimaadaan maxaa lahay tuulooyinka oo ku hareeraysan Baydhabo iyo maxaa lahay bulshada dhexdeeda oo xaafadaha ah iyo qaxootiyaasha ka imaadaan saddexdaas meel ay ka kala yimaadaan. waxa kale oo hay'adda gacanta ku haysa macadka tababarka umulisada ee Baydhabo kaasoo macadka kaliya noociisa ah kana jira dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. ardayga kala timid gobolka ka baxsan dowlad goboleedka Koonfur Galbeed sida Gedo iyo Hiiraan ayaa macadka ka hela fursad waxbarasho caafimaad oo bilaash ah. hay'adda waxay ka shaqeysaa inta badan deegaanada Koonfur Galbeed sida Xudur, Bardaale, Buur-Hakaba, Diinsoor, Qansax Dheere, Marka, Baraawe iyo Ceel Barde. iyadoo ay sii kordhayso saameynta isbeddelka cimilada sida abaaraha isdaba joogga ah, daadadka iyo kuleylka daran kuwaas oo geystay dhimashada xoolaha iyo dalagyada sababayna barakaca malaayiin Soomaali ah sanad walba. hay'adda tuulada carruurta ee SOS waxay magaalooyinka Muqdisho iyo Baydhabo ka aasaastay mashruuca beeraha casriga ee adkeysiga badan. waxaa la hirgeliyay in ka badan 100 aqalada dhirta lagu koriyo oo ku baahsan gudaha iyo hareeraha magaalooyinka. habkan casriga ee beeraha ayaa taageeraya kumanaan hooyooyin nugul iyo dhalinyaro oo hadda ka maareeya nolosha qoysaskooda. dadka hula mashruuc lan furiya ana walwalbi beertan ka taabni kajaar walliya taabni walliya nyaanyi simirsaan liya taabni walliya koosto oo geed sariiran suubiya wa taabni. hay'adda tuulada carruurta ee SOS waxay gacanta ku haysaa isbitaalka weyn ee degmada Balcad iyadoo dayactirtay isla markaana qalabaysay. SOS markay timid isla markaasna ay aragtay meesha aan fadhino iyo dadaalka guddiga iyo maamulka degmada Balcad oo isku xiran ay sameynayaan aad iyo aad way ku qanacday. SOS waxay nagu soo biirisay shaqaale waxay nagu soo biirisay dhismooyin oo ay ka mid tahay maternity-ga 60 sano kadib qalliin Balcad lagu sameeyo SOS ugu horeyso oo xaqiiqa ma koobi karno. deegaamo badan oo dalka ka tirsan ayay hay'addu ka wadaa barnaamijyo kala duwan oo xagga beeraha, caafimaadka, waxbarashada, biyaha, nadaafadda iyo horumarinta dhallinyaradaba. tan iyo markii ay Soomaaliya ka shaqo bilowday hay'adda tuulada carruurta ee SOS waxaa muuqatay inay sii ballaaranaysay oo ay gaaraysay gobollo cusub. intaas kaliya ma aanay hay'adda oo lagu bartay xanaanaynta carruurta iyo caafimaadka ayaa u gudubtay mashaariic kale oo cusub sida la dagaalanka isbeddelka cimilada iyo horumarinta xirfadaha dhallinyarada ee suuqa looga baahan yahay. anagoo taas ka duulayna marka waxaan sameynay hab casriyeed wax loo beero ayaan barnay beeraleydii oo qaab hore wax u beeri jiray. hab casriyeed ayadoo laga maarmaayo in la isticmaalo carro, ayadoo laga maarmaayo in biyo badan la isticmaalo, biyo yar oo ku filan oo geedka si ay ku beesgareysan tahay aqoon iyo cilmi loo koriyo hydroponic system. beeraan bilaabnay beeraleydan aad hadda la shaqeynaa. waxaan la shaqeynaa kuwa xanaanada xoolaha, wasaaradda xanaanada xoolaha iyo wasaaradda beeraha iyo dadka beeraleyda iyo dadka xoolo dhaqatada ah. dadka xoolo dhaqatada ah waa aragtay waddankeena abaar hadday dhacdo wax ugu horeeya oo dhimanayo waa xoolaha. xoolaha iyo anagana waa isku xirannahay. nolosha xoolaha iyo nolosha bini'aadamka isku xiran yihiin. saamaynta hay'adda ayaa sii kordhaysay sanadba sanadka ka dambeeyo waxaana 10kii sano ee ugu dambeysay hay'addu ay celcelis ahaan gaaraysay 1 milyan oo qof oo Soomaaliyeed iyadoo ay xusid mudan tahay in sanadkii ugu dambeeyay 2024 ay gaartay 1.6 milyan oo qof kuwaas oo ka faa'iideystay adeegyada kala duwan ee hay'addu bixiso. sanadkan waxaan filaynaa tiro intaas leeg iyo in ka badan inaan gaaro. marka qiyaas badan anagoo 40 sano shaqaynaynay oo sanad walbana ugu yaraan gaaraynay tiro nus milyan ilaa 1 milyan oo haddana sanad walba sanad kasii dambeeya kor usii kordhayso. saameynteena aad ay u weyntahay. يعني maanta anoo runta ka sheegayo inta qof aan la kulmo oo idhahayso SOS aan ku dhashay isbitaalkeena, SOS aan ku waxbartay, SOS aan igu daaweeyey tiro mala waa ma cadadna wala xisaab.